السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالق أميل كستو جوجتان waxaan idin rajeynaa inaad caafimaad qabtaan alxamdulillahi rabbil caalamiin. maanta qiso ayaan idin wadaa, qisadan oo ah qiso cajiib ah oo weliba aad iyo aad u xanuun badan. qisadan laba gabdhood oo walaala ayay ku saabsan tahay. weliba qisadan waxaa qortay labada gabdhood midda weyn. gabadhani waxay tidhi aniga iyo walaashay anaga waxay tidhi aad u yaryar ayay waxaa geeriyooday hooyada iyo aabahay. hooyada diyaabad waxay ku geeriyoodeen shil gaari. deetana waxay tahay hooyada aabahay markay dhinteen waxaana soo qaatay adeerkay. guriga adeerkay ayaan waxay tiri ku soo kornay. guriga adeerkay waxay tiri eedadana aad ayay noo necbayd oo waxay tiri ay noogu darayd oo waxay tiri xataa naxariis yar nooma aysan geli jirin. deetana waxay tiri walaashay maadaama waxay tiri eedadayna ay aad noogu darayd walaashayda yarta ah anigu waxay tiri aad ayaan u ilaalin jiray. xataa hadday khalad samayso khaladkeeda aniga ayaa dusha saaran jiray si aan iyada loo dilin oo waxaan dhihi jiray aniga ayaa sameeyey. deetana khaladka iyada gashay ayaa aniga la ii dili jiray oo la ii garaaci jiray. deetana waxay tidhi iskuulkii ayaan bogay waan waaweynaanay. markaan waxay tidhi iskuulkii bogay baa waxay tidhi oon cabaar gurigii joogay baa waxay tidhi nin isoo doontay. deetana ninka waxaani bay tidhi maya haddaad rabta inaad i guursato waa inay walaashay i raacdaan oo walaashay igama hadhayso. markaasuu yidhi walaashaa gurigoodii joogtay anigu adiga adaanku rabee walaashaa ma rabine ma isguursanaynaa. waxay tiri waan diidi. nin kasta oo isoo doona waxaan dhahaa maya walaashay oo yar baa jirta aniga walaashay igama hadhayso. walaashay xataa habeenka gurigayga u horeysa inuu galbanayo oo la ii galbinayo way i raacaysaa iyada xataa way ila galban oo aniga igama soo laabanayso. intaas waxay tiri waxaan ka dagaalamayay meeshan dhibaatada ka jirta aan ogahay walaasha ha uga tegin oo walaasha yeysa dhib arkin. deetana waxay tiri markii dambe nin ayaan heshiinay waxaan idhi walaashay igama hadhayso walaashay oo yar baa jirta walaashayna igama hadhayso. walaasheed marka iyadana waa ilmo adigu isku soo xigoo kale camal oo walaasheed marka iyada xataa waa qof weyn oo way soo weynaatay laakiin ayada ayay ka yar tahay. deetana waxay tiri ninkii wuxuu yahay dhibaato male walaasha waa walaashay oo kale waxba dhiba ma jiro wuxuu waa ku soo raaci kartaa walaasha haddaad ku adkaysato. hayaan ribaytay waan farxa waxaan soo tiri noloshan adag baad ka baxaysaan rafaadkan baad ka baxaysaa. waxay tiri waaniga waxay tiri dee farxay oo walaashay igama hadhaysid waa guri baan isla degaynaa anaad ila joogaysaa walaashaa baan ahay. haye waxay tiri waa la i galbiyey adigu ninkii waa isguursanay waa la i galbiyey gurigii baan degnay. gurigii markaan degnay waxay tiri walaashay qolkeeda iyo fadhiga iyo waxay qolkayga iyo guriga waxay cid kale ma joogto saddexdanadaas ku nool. waxay tii nolol farxad leh anigu waxay tii waan iska faraxsanahay waxaan isleeyahay alxamdulillah ilaahay baa walaasha ku soo raaciyay oo rafaadkii iyo dhibkii aad uga imaanin. oo waxay tiri ninkii waaniga waxay tiri haddana waxaan ku fikiray walaashay maadaama markaa iyada iskuulka soo bogtay inay jaamacadda ka bixiyo. deetana waxay tiri ninkii waaniga ibtay walaashay jaamacadda ka bixi walaashay waa gabadh yar mustaqbal bay rabtaa jaamacad bogtay rabtaa inay wax noqotay rabtaa. waxay tiri waaniga ninkii ku qalqaaliyay waxay tiri waata micnaha dee uga soo dhamaysay inuu waxbarashadii ka bixiyo oo jaamacadda uu ka bixiyo. deetana haye buu yidhi jaamacadba waxay tiri ka shubay lacagtii walaashay jaamacadeed bay iska akhrisanaysay muddo waxay tiri guurkayga adugu xoogaa baa kasoo wareegtay waxaan adugu waxay tiri sanad dhannayn baa kasoo wareegay. deetana waxay tiri markaan cabaar joognay ninkii waa ka isbedelay. marka waxay tiri ninkii isbedelay oo waxay tiri uun afka taagayo oo xanaaqsan yahay oo waxay tiri juuq uusan dhahaynin oo shib uu iska yahay oo guriga cunto ka cunaynin. unbaan maalintii dambe idhi bay tiri maxaa dhacay maxaadse ugu xanaaqsan tahay maxay tahay isbedelkan maxay tahay. waxay tiri anigu ninkii su-aalo badan baan weydiiyey markaasuu yidhi bay tiri nafna nafaysa rabin lama joogi karto. ereyga waxay tiri markuu yidhi unbaa waagu igu baryo oo waxay tiri indhahii unasaa u taagay oon la yaabay oon ku yidhi maxaa dhacay soo shalay rabitaankeenna isku meynaa soo guursanin maxaa dhacay maxaa isbedelay maxaa dhibo. xataa qofku dee khaladka iyo khaladkaasaad gashay waa in la dhaho. deetana waxay tiri adigu ninkii waxaan cabaar su-aalo weydiiyaba wuxuu igu yidhi bay tiri marka waxaan bay tiri bal ii sheeg waxa khaladan anigu sameeyey ii sheeg. wuxuu yidhi bay tiri anigu waxaan jeclahay walaashaa. cajaa'ib sheekaba halkan markay arrintu maraysay tala fara ka baxday. ninkiiba wuxuu yidhi walaalay anigu waxaan jeclahay walaashaa adigana kuma jeceli. waxay tiri ninkii waaniga ku qayliyey waaniga waxay tiri
baroor waxay tiri halkan oohin afka furtay wiska baxay walaashay waata ii imaatay waxay tiri waan walaashay ku orday walaashay ninkii wuxuu igu yiri ma ogtahay sidoo walaashay u dhihi kara waan jeclahay ninkayga maanta wuxuu yiri walaashaa baan jeclahay markaasay tibay maxaa dhib ah hadduu aniga jeclaado maxaa dhib ah dadku labadii israbto ba labadii isku faraxsan unba walaal isla joogi karta hadduu isagu jeclaaday tiri wax dhiba ma laha waxay tiri waa aniga qaracmay waa aniga waxay tiri ibeet ninka gurigiisa waan ka tagayaa soo bax way diiday beet waxay tiri adigu haddaad ninka ka xanaaqsan tahay ood adigu ka tagaysid anigu ma tagayo waxay tiri anigii qaracana baan boorsay inta dhar ku urursaday baan gurigii ku laabtay gurigan ku laabtay waxay tiri waa gurigii adeerkay baan waxay tiri ku laabtay markaan guriga waxay tiri ku laabtay baan baroor waxay tiri guri isku xiray oon oohin la fadhiistay halka waxay tiri baroorta hiqda iga dhamaatay oo waxaan qaadan waayay tiri walaashay oon anigu wax kasta iyada darteed u sameynayay inay ninka igala safato oo ninkaas dhahdo ra'yigiisa wuu ku saxsan yahay taas ayaan diidanaabay waxay tiri muddaba kama soo wareegin ninkii adeerkay baa aaday waxaa la yiri gabadha maxaad saa ugu samaysay wuxuu yiri dhibaato male anu gabadhan warqadeedaan siinayaa meherkeedana waan siinayaa gabadhanna waan isjecelnaa adeerkay waxay tiri waa ka walaashay ku qayliyey waa ka yibay waad khaldan tahay walaashabaad gurigii ka dumisay maxaa ninka walaasha aad ka doontay waxay tiri dhibaato male ninka haddaanu anagu isjecelnahay waanu ku heshiinay inaan isguursano iyadana waa la furaya waata adigu gabadhii weyneed la furay gabadhii yaraydna waata ninkii sidii ku guursatay hadda qofka waxaa ku sameeyey saaxiibad ma ah qof kale ma ah waa walaasheed macaan yaa waxaasaa ku samaysay waxay tiri cuntadii ka go-ay waaniga waxay tiri guriga isku xidha waaniga un ooya waxay tiri eedaday unbaaba ilaahay buri igu dhuftay oo yimaado ay dhahday adduun wax kasta waad arki iska samir iska dhaaf na oohinta iska daa na guriga ka soo bax na dadka soo dhexgal waxay tiri eedaday baa i waanisa eedaday waxay tiri waagii hore aan la noolayn baybe waxay tiri igu dhib badnayd oo waxay tiri ayba necbayd oo arki karin laakiin waxay tiri hadda ilaahay baa bur igu dhuftay waxay noqotay tiri sidii hooyo camal bayba ila dhaqantay waxay tiri dee waaba iga naxday dhibaatada i haysata un bayba ka naxday adeerkay waxay tiri wuu qaracmay adeerkay kale waxay tiri waa ka isaguna waxay tiri ka yimid magaalo kale waxay tiri aniga dartay uga yimid walaashay waxay tiri ninkii wayba guursatay intay guursatay weliba gurigaygii ayay degtay bet waxay tiri gurigaygii bayba degtayba iyagu nolol bayba waxay tiri halkaa ka bilowdeen qofta waxay tiri barooranaysa ee qaracanka ahee naftu ka dhacaysaba waa un aniga deetana waxay tiri adeerkay kale ayaa magaalo kale iiga yimid adeerkay baa i kaxeeyey oo ibay tiri ba naga keen magaaladan ba inaga keen magaaladii baan ka tegay magaalada adeerkay deganaa baan tegay magaaladaasaan muddo joogay waxay tiri adeerkay kolba dalxiis buu meel ii geeyaa kolba waxay tiri wuu i kaxeeyaa alxamdulilah waxay tiri adeerkay adeer fiican weeye waxay tiri wiil baa isbaranay wiilkiiban waxay tiri markii dambe heshiinay waa isguursanay wuxuuba noqday bay tiri madaxweynaha wadankaas dhan haysta wiilkiisi waxay tiri gurigii waxay tiri madaxda baaba la ii galbiyey kiiba ka raystay alxamdulilah waxay tiri hadda anigii cunugayga iyo waxay tiri xaajigaygu si fiican oo barwaaqaysan baa u wada noolahay walaasha iyo ninkeedina waxay tiri waagii baaba iigu dambeeyey xataa waxay tiri inaan walaal leeyahay waaban ilaa webet aabbaha iyo hooyaday ma dhinteen walaashina inay dhimatay camal baan kasoo qaaday beti sababtoo ah heerka ay i gaadhsiisay baa waxay tiri heer aada u xun ah marka waxay tahay hadda ani nolol fiican ayaan ku noolahay qisadii halka ayay ku gabagabowday asxaabay soo dhawaadeedana khayr badan baa idin rajeynayaa